waxay ogaatay in macalinkeedii Hirata loo yeeray. Macalinka fasalka ayaa uga digayay inuusan Sayaka ku dhiirigelin riyo aan macquul ahayn. Laakiin Hirata si adag ayuu u difaacay ardaydiisa. Wuxuu rumaysnaa in qofna aan lagu xukumi karin wixii uu ahaa shalay, balse lagu qiimeeyo waxa uu noqon karo beri. Sayaka oo meel gees ah ka dhumanaysay ayaa maqashay dhammaan hadalladii dhex maray macalinka fasalka iyo Hirata. Markii ugu horreysay ayay ogaatay in qof aan hooyadeed ahayn uu si buuxda u rumaysan yahay awooddeeda. Arrintaas ayaa qalbigeeda si weyn u taabatay. Laga bilaabo maalintaas dadaalkeedu wuxuu gaaray heer cusub. Derbiyada qolkeeda waxaa ka buuxsamay waraaqo ay ku qoran yihiin casharo, heerar naxweed, taariikho iyo xisaabo kala duwan. Meel kasta oo ay eegto waxaa yaalay wax ay ku baranayso. Markii la gaaray maadada taariikhda, Hirata wuxuu dareemay in habka xifdinta keliya uusan ku habboonayn Sayaka. Sidaas darteed wuxuu siiyey buugaag sawirro iyo sheekooyin leh oo sharxaya dhacdooyinka taariikhiga ah. Taas ayaa ka dhigtay waxbarashadu mid xiiso badan. Hooyadeed markay aragtay sida ay gabadheedu u dadaalayso, waxay sii xaqiiqsatay in go'aankii ay ku geysay xarunta casharada gaarka ahi uu ahaa mid sax ah. Dhanka kale, Sayaka qudheedu waxay yeelatay himilo cusub. Waxay rabtay inay mustaqbalka noqoto qof dadka kale caawiya sida uu Hirata iyada u caawiyey. Inkasta oo horumarkeedu degdeg ahaa, haddana dhibaatadu waxay ahayd in ay aad uga dambaysay ardayda kale. Waqtigii ka haray imtixaanka gelitaanka jaamacadda ma ahayn mid badan. Hirata wuxuu xisaabiyey in haddii ay rabto fursad dhab ah, ay khasab tahay inay laban laabto saacadaha ay wax ku baranayso. Taasi waxay ka dhignayd in qarashka waxbarashaduna laban laabmayo. Hooyadeed waxay guriga kula tashatay walaasha yar. Waxay go'aansadeen inay isticmaalaan lacag ay muddo dheer kaydsanayeen. Walaasheed yar wax cabasho ah ma aysan muujin. Waxay si degdeg ah u ogolaatay in lacagta loo isticmaalo waxbarashada Sayaka. Markii Sayaka ogaatay arrintaas, indhaheeda ilmo ayaa buuxiyey. Waxay garwaaqsatay in lacagtaas aysan ahayn lacag keliya, balse ay ahayd jacaylka, kalsoonida iyo rajada qoyskeedu ku qabeen. Maalin kale, Sayaka waxay la kulantay saddexdii saaxiibadeed. Kulankaas kadib waxay wada aadeen meel lagu nasto oo biyo kulul leh. Iyagoo dhex fadhiya biyaha kulul, saaxiibadeed waxay si daacad ah ugu sheegeen inay ku faraxsan yihiin isbeddelka ku dhacay. Waxay yidhaahdeen, waxaan aragnaa sida aad u dadaalayso. Ma rabno inaan kaa mashquulinno waxbarashadaada. Waxaan doonaynaa inaad gaarto riyadaada. Hadalladaas ayaa Sayaka qalbigeeda taabtay. Waxay fahamtay in saaxiibka dhabta ahi aanu ahayn qof kula degaya khaladaadka, balse uu yahay qof ku farxa markaad horumar samayso. Waqti yar kadib, Sayaka waxay gaartay sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare. Ugu dambayn waxay dhammaysay dhammaan casharadii asaasiga ahaa. Hirata ayaa markaas u keenay su'aalo hore oo laga bixiyey imtixaanada jaamacadda Keyo. Laakiin markii Sayaka furatay warqaddii imtixaanka, qalbigeedu wuu istaagay. Su'aal kasta waxay ula muuqatay mid aanay weligeed arag. Wax jawaab ah ma aysan garanayn. Dareen culus oo guuldarro ah ayaa ku dhacay. Waxay ka carartay xarunta casharada waxayna keligeed u aaday saqafka dhismaha. Muddo yar kadib, Hirata ayaa daba yimid. Jeebkiisa ayuu ka soo saaray ukun. Isagoo si taxaddar leh u hagaajinaya ayuu isku dayay inuu ukunta si toosan u istaajiyo. Markii ugu dambayn ay istaagtay, ayuu Sayaka ku yidhi, haddii qof walba marka hore aamino in ukuntu istaagi karin, idina ma tijaabin lahayn. Kadib wuxuu sii raaciyey, waxyaabo badan ma fashilmaan sababtoo ah waa kuwa aan suurtagal ahayn. Waxay fashilmaan sababtoo ah dadka ayaa marka hore rumaysta inaan la samayn karin. Haddii aadan naftaada rumaysan, weligaa ma gaari doontid guul. Ereyadaas ayaa Sayaka mar kale dhiirigeliyey. Maalintii xigtay waxay go'aansatay inay si buuxda u beddesho nolosheeda. Waxay jartay timihii dhaadheeraa ee ay sannado badan lahayd, waxayna xiratay dhar dugsi oo caadi ah. Wax kasta oo maskaxdeeda ku jiray waxay u horeysay waxbarashada. Xitaa Ryosuke, oo markii hore ahaa wiil fallaago ah, wuxuu ku dayday isbeddelkeeda. Wuxuu timihii midabka dahabka ahaa ku soo celiyey madow, isaga oo si dhab ah ugu diyaar garoobay imtixaanada. Laakiin noloshu mar walba ma bixiso natiijooyin degdeg ah. Imtixaankii ugu horreeyey ee tijaabada qaranka, Sayaka dhibco hoose ayay keentay. Fursadda ay ku geli karto jaamacadda Keyo waxay ahayd wax ka yar 2 eber. Imtixaankii labaad iyo kii saddexaadna wax badan kama duwanaan. Bogagga buuggeeda xusuus qorka waxaa ka buuxsamay murugo, cabsi iyo niyad jab. Markii ugu horreysay muddo dheer, waxay bilowday inay ka shakiso riyadeedii. Natiijooyinkii liitay ee imtixaanada tijaabada ah ayaa si tartiib tartiib ah u cunayay kalsoonidii Sayaka. Maalin kasta waxay dareemaysay in riyadii jaamacadda Keyo ay sii fogaanayso. Cadaadiska iyo daalka ayaa gaaray heer ay mararka qaarkood neefsan kari weydo. Ugu dambayn maalin ayay u tagtay Hirata iyadoo madaxa hoos u foorarsan. Waxay ku tidhi, macallin, waxaan u malaynayaa inaan ka tanaasulo Keyo. Qolka ayaa aamusay. Sayaka waxay rumaysnayd in Hirata markan ku raaci doono go'aankeeda. Waxay filaysay inuu u sheego inay doorato jaamacad sahlan. Laakiin Hirata si degan ayuu u eegay. Wuxuu xusuusiyey dadaalkii ay sannadaha badan soo waday, habeenadii hurdo la'aanta ahaa iyo dhammaan caqabadihii ay ka soo gudubtay. Wuxuu ku yidhi, haddii aad maanta ka tanaasusho, ma waxaad ka shalayn doontaa mustaqbalka? Su'aashaas waxay ku dhacday qalbigeeda sida hilaa. Si kastaba ha ahaatee, Sayaka weli waxay ku jirtay jahawareer. Waxay ka baxday xarunta casharada iyadoo aan cidna la hadlin. Roob xooggan ayaa daayay. Waxay keligeed ku wareegaysay waddooyinka iyadoo aan garanayn halka ay u socoto. Dhanka kale, Hirata wuxuu fadhiistay qolkiisa isagoo eegaya roobka daaya daaqadda gadaasheeda. Wuxuu isweydiinayay haddii uu ku adkaa ardaydiisa. Wuxuu ka baqayay in cadaadiskii uu saaray uu dhaawacay gabadha uu aadka u aaminsanaa. Sayaka ugu dambayn waxay gaartay goobtii ay hooyadeed ka shaqaynaysay. Markii hooyadeed aragtay wejigeeda murugada leh, si degdeg ah ayay ugu soo oroday. Maxaa dhacay ayay weydiisay. Laakiin Sayaka jawaab ma bixin karin. Waxay ku celcelinaysay hal erey oo keliya. Waan ka xumahay. Marar badan ayay sidaas ku celisay iyadoo ilmaynaysa. Ugu dambayn waxay ku dhacday gacmaha hooyadeed iyadoo oohin daran la dhacaysa. Hooyadeed si adag ayay u habsiisay. Markii ay guriga ku noqdeen, hooyadu waxay ku tiri, haddii aad daashay, mararka qaarkood joojintu ma aha guuldarro. Laakiin waxay sidoo kale uga warantay aabbaheed. Waxay sheegtay in aabbuhu aanu ahayn nin qalbi xun.
markii uu yaraa riyadiisu sidoo kale waxay ahayd inuu galo jaamacadda Keio oo uu noqdo ciyaaryahan baseball xirfad leh laakiin riyadaasi way burburtay taasi waa sababta uu dhammaan rajadiisa ugu wareejiyey wiilkiisa nasiib darro walaalkiisa Yaka isaguna wuxuu bilaabay inuu fahmo xaqiiqda wuxuu garwaaqsaday in baseballku aanu ahayn waddadiisa si qarsoodi ah ayuu uga baxay kooxda baseballka markii aabbihii ogaaday arrintaas aad ayuu u xanaaqay cadho darteed ayuu canaantay wiilka si daran laakiin markan qof ayaa ka hor yimid hooyadii